Cagaarshowgu waa xaalad caafimaad oo lagu garto caabuqa beerka. Beerku waa xubin muhiim ah oo mas'uul ka ah hawlo badan oo muhiim ah oo ay ku jiraan soo saaridda iyo walxaha waxyeellada leh, kaydinta fitamiinada iyo macdanta, iyo soo saarista beelka. Cagaarshowgu waxaa sababi kara caabuqyada fayraska, isticmaalka xad-dhaafka ah ee khamriga, daawooyinka qaarkood, iyo xaalado kale oo caafimaad. Muuqaalkani waxaa si qoto dheer ugu eegi doonaa cagaarshowga, aniga oo diiradda saaraya noocyada, sababaha, calaamadaha, ogaanshaha iyo daaweynta, iyo ka hortagga cagaarshowga. Haddii aad doonaysid ka bogasho wacan. Noocyada cagaarshowga. Cagaarshowga waxaa loo kala saari karaa dhowr nooc. Ugu horreyn, waxaa loo kala saaraa sababaha. Cagaarshowga fayraska kani waa nooca ugu badan ee ay keenaan fayrasyo kala duwan. Noocyada asaasiga waxaa ka mid ah: 1. Cagaarshowga A ama hepatitis A virus. Caadi ahaan wuxuu ku faafaa ama ku fidaa cuntada iyo biyaha wasakhaysan. Hepatitis A virus waxay sababtaa caabuq ba'an oo caadi ahaan iskii isku xalliyo, micnaha daawo uma baahna. 2. Cagaarshowga B ama hepatitis B virus waxaa lagu kala qaadaa kuna faafaan dheecaannada jirka sida dhiigga iyo shahwada. Hepatitis B virus waxa ay keeni kartaa cudurro degdeg ah ama kuwo joogto ah, micnaha acute iyo chronic labadaba. 3. Cagaarshowga C oo loo yaqaano hepatitis C virus inta badan wuxuu ku faafaa dhiig ilaa dhiig, micnaha qof hepatitis C virus qabo dhiiggiisa haddii qof kale lagu shubo ama dhiiggiisa sidoo doonaba ha ku gaaree uu gaaro qofka kale, sidaas ayuu ku qaadayaa. Hepatitis C virusna waxa ay inta badan keeni kartaa xanuunada beerka ee joogtada ah, micnaha chronic disease-ka oo beerka, waana sababta ugu weyn ee beerka loo bedelo. 4. Cagaarshowga T oo loo yaqaano hepatitis D virus keliya wuxuu ku dhacaa kuwa qaba hepatitis B virus, taasoo ka dhigayso in ay isbiirsadaan oo ay sababaan caabuq aad u sarreeya oo leh natiijooyin aad u daran. 5. Cagaarshowga E oo loo yaqaano hepatitis E virus si la mid ah hepatitis A virus waxa uu ku faafaa cuntada iyo biyaha wasakhaysan, laakiin waxa uu ku badan yahay wadamada soo koraya. 6. Cagaarshowga alcoholic hepatitis oo ay sababto cabitaanka alcoholka ee xad-dhaafka ah waxay keeni kartaa liver cirrhosis iyo beerka oo shaqayn waayo haddii cabitaanka uu sii socdo. 7. Cagaarshowga autoimmune waa xaalad naadir ah oo habka difaaca jirku uu weeraro unugyada beerka, taasoo keento caabuq iyo dhaawac. 8. NASH ama non-alcoholic steatohepatitis waxay ka dhalataa marka ay baruurta beerka ku aruurto oo inta badan ku xiran buurnida dheefshiidka kiimikeed oo cilladoobo, taasoo keento caabuqa beerka iyo dhaawaca. Sababaha iyo waxyaabaha khatarta ah ee keena. Sababaha cagaarshowgu way ku kala duwan yihiin iyada oo ku xiran nooca. 1. Cagaarshowga fayraska. Waxaa keeno fayraska cagaarshowga ee kala ah A, B, C, D, E. Waxaan aan tirinayna ma aan xarfo Ingiliish ee waa magacyada fayraska. Inta badan waxay ku kala gudbi karaan ama ku kala gudbaan cunista cuntada iyo biyaha wasakhaysan, galmada aan badbaadada lahayn, iyo wadaagista cirbadaha. 2. Cagaarshowga alcoholic taas oo ka dhalata cabista khamriga ee muddada dheer. 3. Cagaarshowga autoimmune waxaa keena jawaab celin difaac oo aan caadi ahayn. 4. NASH waxay ku xiran tahay cayilka, macaanka, kolestaroolka sare, iyo caadooyinka cuntadaada oo liidata. Waxyaabaha khatarta ah ee keena waxaa ka mid ah galmada aan la ilaalin, wadaagidda cirbadaha, u safridda meelaha nadaafadda xun ay ka jirto, isticmaalka khamriga ee xad-dhaafka ah, buurnaanta, iyo cudurrada kale ee beerka. Astaamaha. Cagaarshowgu waxa uu soo bandhigi karaa calaamado kala duwan, laga bilaabo mid fudud, calaamado fudud, ilaa mid daran oo noqon kara calaamado daran. Calaamadaha caanka ah waxaa ka mid ah daal, cagaarshow ama jaalle oo inuu noqdo maqaarka iyo indhaha, calool xanuun iyo barar, lolobo iyo matag, kaadi madow, saxaro oo ciro leh, micnaha saxarada in ay u ekaato midabka barax ah camal, cunto xun, miisaan yari aan la macnayn karin halka ay ka timid. Xaaladaha daba dheeraada ama chronic marka uu noqdo oo waqti dheer qofku uu hayo xanuunka cagaarshowga, astaamuhu waxay noqon karaan kuwo khafiif ah ama aanan soo muuqanin ilaa uu dhaawac weyn oo beerka ahi uu dhaco. Ogaanshaha. Si loo ogaado cagaarshowgu waxaa muhiim ah in la sameeyo dhowrkan tilaabo. 1.
taariikhda caafimaadka iyo imtixaanka jirka micnaha medical history and physical examination qiimaynta hore waxaa ka mid ah ka hadalka calaamadaha arrimaha khatarta ah iyo taariikh kasta oo keeni karta fayraska cagaarshowga 2 tijaabada dhiigga si loo ogaado fayraska cagaarshowga heerarka enzymka beerka iyo unugyada difaaca jirka ee tilmaamayo caabuqa 3 tijaabooyinka sawirada ultrasound CT scan MRI si loo qiimeeyo dhaawaca beerka micnaha magacyadii hadda aan soo tirinayay waa scans ama waxyaabo sawirada jirka looga qaado kuwaas oo ku sheegayo haddii uu dhaawac jiro dhaawaca inta uu la egyahay aad ku ogaan karaysid 4 biopsiga beerka waa qaadashada muunad yar oo unugyada beerka si loo baaro caabuqa iyo dhaawaca oo inta badan loo isticmaalo si lagu xaqiijiyo cagaarshowga daaweynta cagaarshowgu waxay ku xiran tahay nooca iyo darnaanta 1 cagaarshowga ama hepatitis A virus caadiyan iskiis ayuu isku xaliyaa daaweynta waxay diiradda saartaa nasinta calaamadaha ama yareynta calaamadaha sida nasashada iyo fuuq celinta 2 cagaarshowga B ama hepatitis B virus kiisaska cusub ama acute-ka ah waxaa laga yaabaa in aysan u baahnayn daaweyn gaar ah halka xaaladaha daba dheeraada oo krooniga ah laga yaabo in ay u baahdaan daawooyinka fayraska ka hortaga si looga hortago dhaawaca beerka 3 cagaarshowga C ama hepatitis C virus waxaa lagu daaweeyaa daawooyinka ka hortaga fayraska iyaga oo ujeedadu tahay in ay fayraska laga sifeeyo jirka 4 cagaarshowga D ama hepatitis D virus daawadu waxay diiradda saartaa maareynta caabuqa hepatitis B virus maadaama aanan jirin daaweyn gaar ah oo hepatitis D virus ah 5 cagaarshowga E ama hepatitis E virus inta badan way isxakameeyaan ama iskood ayay isku xaliyaan laakiin xaaladaha daran gaar ahaan haweenka uurka leh waxay u baahnaan karaan isbitaal 6 cagaarshowga alcoholic wuxuu u baahan yahay in laga fogeeyo ama uu ka fogaado qofka khamriga xaaladaha daranna waxay u baahnaan karaan daawooyinka corticosteroids ama daawooyin kale 7 cagaarshowga autoimmune waxaa lagu daaweeyaa daawooyinka difaaca jirka si loo yareeyo dhaqdhaqaaqa difaaca jirka 8 nash waxay diiradda saartaa daaweynteeda qaab nololeedka sida miisaanka oo la yareeyo cuntada jimicsiga si loo yareeyo baruurta beerka iyo bararka ka hortagga si aad uga hortagto cagaarshowgu waa in aad qaadataa dhowrkan xeeladood 1 qaadashada tallaalka tallaal waxtar leh ayaa loo heli karaa cagaarshowga 2 dhaqannada badbaadada leh iska ilaali wadaagista cirbadaha samee galmo ammaan ah oo hubi cunto iyo biyo ammaan ah marka aad safraysid 3 habnololeed caafimaad qaba ilaali miisaanka caafimaadka qaba oo maaray xaaladaha sida sonkorowga iyo kolestaroolka sare gabagabadii cagaarshowgu waa xaalad adag oo leh qaabab iyo sababo kala duwan fahamka farqiga u dhexeeya noocyada cagaarshowga garashada calaamadaha iyo raadinta daryeel caafimaad oo habboon ayaa muhiim ah maareynta cudurka si wax ku ool ah talooyinka ka hortagga sida tallaalka iyo wax ka beddelka qaabnololeedka ayaa door muhiim ah ka ciyaaro yareynta khatarta cagaarshowga markay xog ogaal u noqdaan shakhsiyaadku waxay ilaalin karaan caafimaadka beerkooda iyo fayoobida guud halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena waxaa inoo balana ciwaanka xiga hadduu alla idmo khayr badan